dulmiga iyo kibirka wuu guuldareysanayaa xaqa ayaana ah markasta kan guuleysanayaa ciidamada ururka Xamaas ayaa markii ugu horeysay adeegsaday gantaalada ridada dheer ee Ayaash 250 waxayna gantaalo culus ku garaaceen garoonka diyaaradaha Tel Aviv iyo magaalada Ashkelon qasaare baaxad leh ayaa gaaray Israa'iil inkastoo markasta qarsadaan qasaarahooda Turkiga oo diyaarad gargaar sida u diray Falastiin maxaa diiday in ciidamo u diraan waa su'aalaha la isweydiinayo warbaahinta Al Jazeera oo laga joojinayo tabinta dagaalka iyo Erdogan oo hanjabay ka hor muuqaalka la agsaarsiina shargaray si uu gaaro asxaab fara badan ciidamada ururka Xamaas markii ugu horeysay waxay adeegsadeen gantaalada ridada dheer ee Ayaash 250 waxayna maanta gantaaladan ridada dheer ku garaaceen garoonka diyaaradaha Israa'iil ee magaalada Tel Aviv iyo magaalada Ashkelon 150 gantaal waxay ku rideen Ashkelon halka 50 gantaal oo kalena ku garaaceen garoonka diyaaradaha Tel Aviv ee Gorion weerarkan gantaalada ah ay Xamaas kaga gol lahaayeen in qasaare ku gaarsiiyaan Israa'iiliyiinta dagaalka ee kula jiraan wayna gaareen hadafkooda oo ahaa in gantaalada ay tuuraan ay ka dhashaan qasaare dhimasho iyo dhaawac ah waxayna weeraradan gantaalada ay Xamaas rideen jawaab u ahaayeen weerarada gantaalada ay Israa'iil ka geysanayso Gaza iyo magaalooyinka kale ee Falastiin Xamaas oo xaq u taagan iyo Israa'iil oo gardaro ku taagan ayaana weli dagaalamaya dowladda Turkiga ayaana waxa ay gargaar u dirtay wadanka Falastiin iyadoona gargaar diyaarad sida maanta ay ka degtay garoonka diyaaradaha El Arisb ee ku yaala dalka Masar balse diyaaraddaasi gargaarka sida waxa su'aal ka keenay muslimiin fara badan iyagoo Turkiga ku eedeeyay in aysan ciidamo u dirin Gaza oo ay gargaar u dirto Falastiiniyiinta balse arintaas ayaa noqotay mid hadalhayn fara badan dhalisay oo guud ahaan dawladaha muslimiinta siyaabooyin kala duwan ay kaga falceliyeen reer galbeedka taageero dhinac kasta ah ay u muujinayaan Israa'iiliyiinta dagaalka kula jira Falastiin halka dawladaha muslimiinta ah ay gargaar oo kaliya iyo hadal oo kaliya ku wadaan taageerada ku aadan Falastiiniyiinta warbaahinada caalamka ayaa siyaabooyin kala duwan u tabinaya dagaalada ka socda guud ahaan dalka Falastiin warbaahinta Al Jazeera oo kamid ah warbaahinada tabiya dagaalada ayaa waxaa hadda la sheegay in la doonayo in laga joojiyo tabinta dagaalada kala duwan ee ka socda Gaza iyo dhulka Falastiin waxaana sidoo kale golaha wasiirada ee Israa'iiliyiintu maanta shireen ku sheegeen in ay doonayaan ama la doonayo in amar fulineed oo ah in laga joojiyo warbaahinta Al Jazeera tabinta dagaalada maadaama ay la safan tahay dawladda Falastiin oo iyadu hadda taageero weyn ay u muujinayso warbaahinta Al Jazeera waxa ay kamid tahay warbaahinada sida weyn u tabinaya dagaalka iyagoona si weyn u taageersan dawladda Falastiin halka warbaahinada caalamka oo idil ay taageero u muujinayaan warbaahinta gaar ahaan dhanka iyo Israa'iil dawladaha reer galbeedka oo idil haddii muslim la taageero waxa ay leeyihiin waa mid khalad ah balse haddii iyagu iskugu hiiliyaan gardarada iyo xaqdarada waxa ay leeyihiin waa mid sax ah arintaasi warbaahinta Al Jazeera ayaa hadda la qorsheenaya in laga joojiyo guud ahaan tabinta dagaaladaasi kala duwan Turkiga madaxweynahooda Rajab Tayyip Erdogan waxa uu hanjabay Israa'iil isagoo oo sheegay in waqtiga loo qabtay muslimiinta Gaza ku nool inay tahay waqti aad u yar iyo in dhibaatooyin kala duwan la gaarsiiyo muslimiinta dagaalka wili waa uu sii socdaa markastana waxaan la jirnaa muslimiinta Falastiin ee dagaalka kula jira Israa'iiliyiinta ha guulaysato ayaan leeyahay aragtida qaybta hoose ku soo dhiibo taageerada aad u muujinayso walaalahiin Falastiin ee dhibaatada haysato iyo ururka Xamaasba mahadsanid muuqaalkan like saar sina sheegaraysi uu gaaro asxaab fara badan amaana Allah